haddii aad 30 sano ka weyn tahay mashquul aad tahay dabcan haddana aad sooman tahay aadna muddo 20 exercise oo aad habeenkii jimka ku sameysay inay natiijo ku keenayso waa beenta ugu horeysa maanta aan ugu talagalnay inaan tirtirno 30 sano haddii mar aad gaarto jirkaagu wuxuu bilaabaa inuu isbedelo recovery-gaaga yaraada murqahaaga hoos u soo dhaca metabolism-kaagana wuxuu bilaabaa inuu wax adaptation la dhaho uu sameeyo inuu meesha uu taagan yahay uu la qabsado dabcan markaad u fiiriso ramadaanka 5 beri ugu horeysa miisaanka ka dhaca laakiin weli ma isweydiisay 5 beri wixii ka dambeeya muxuu miisaankaaga la istaagaa sidaas oo ay tahay haddana dadka inta badan da'dan ku jiro si qaldan ay uga falceliyaan marxaladahaas jirkooda ku dhaca cardio tiro badan sida qofka inuu 2 saacadood maalinkii socdo jimicsiyo uusan garanaynin xataa waxa ay yihiin u fiirso maanta Soomaalidu jimku way soo galaan waxaad arkaysaa qof treadmill-ka dabcan mashiinta lagu socdo saaran markuu ka dagana mashiinta jaranjarada stairmaster-ka la dhaha karo haddana baaskiilka kusoo gabagabeynayo dabcan qofkaas ma ogo saddexdaas aalamiito uu sameynayo inay hal shaqo wada qabtaan waa qof iska confusion ku jira waana sababta inta badan jimka aan u tagno haddana aan u aragno inuusan waxba isbedeleynin maanta waxaan ku siinaa 5 exercise dabcan aad u baahan tahay oo awoodda jirkaaga dib u soo celin doonto muruqahaaga protect gareenka doonto sidoo kaleetana metabolism-kaaga ama aalada ugu wanaagsan ee miisaanka kaari lahayd baruurta kaa gubi lahayd dab ku shidaysa exercise-da marka intaan guda gelin 3 arin oo muhiim ah inaan ku sheego kow qof weyn ahay biraha ma qaadi karo ama biraha hadii aan qaado dhibaato ii keena wax la dhaxama jiro waxaad ogaataa unuga kaliya ee ku horseedi kara nolosha inta ka dhiman inaad caafimaad ku noolaato waa muruqaaga waana unuga ugu weyn ee jirka shaqada ugu badan qabta haddaan rabo maanta inaan ku ismail gareeyo muruqa isticmaala haddaan rabo inaan istaago oo fadhigan aan ka kaco muruqa isticmaala wax walba oo aad sameynaysid maanta muruqa yaa kuu fududeynayo laf walbo jirkaaga ku taalana muruqa dul saaran haddii muruqaaga uu caafimaad heli waayana waxaad ogaataa shayga ugu horeeyo ee aad u dambeynaysid waxay tahay adoonan waqtigaaga gaarin inuu gabow kugu soo degdego marka biro ma qaadi karo because da aan ahay meesha ka saar 70 jir biro ku qaadi kartaa 80 jir biro ku qaadi kartaa bal iska dhaafee fiidiyooyo waxaan idin wadaagi doonaa dad 9 meeyadii ku jira oo still biraha ku train gareenayo qaladka labaad jimku waan imaaday oo hal saac train gareenayo wax dhididna igama imaanin dhididku macna yani kama bixinayo inaad wax wanaagsan sameysay dhididku mar walba wuxuu ku xiran yahay temperature-ka meesha aad joogto iyo heerkulka sida uu yahay qofka Soomaaliya joogo iyo qof Canada ku nool baraf dhex taagan isku nooc uma dhididayaan tan saddexaad ee ugu dambeysana socodka igu filan aamin socodka almiito fiican waaye baruurta wuu guba laakiin sinna kuguma filnaan karo ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirkaaga wuxuu u abuuray in mar walba challenge aad geliso lafahaagan aad arkaysid marka aad culeys saarto yay kubcaan ay awood yeeshaan murqahaagan aad arkaysid marka aad challenge garayso marka aad wax aysan raali ka ahayn ku samayso yay kubca ka qaadaan socda igu filan marka waxba iska dhaadhicinin socodku fiican yahay laakiin waa inaad ku dartaa wax strength training ah waa inaad ku dartaa wax uu jirkaaga challenge gelinayo talabaad haddii mar 30 sano aad dhaafto waa in goolkaaga ugu weyn uu noqdo inaad murqahaaga xooga saarto maahan sidee miisaan ku ridi karaa sideen murqihiga ku kobcin karaa ugu mar haddii muruqaaga uu caafimaad leeyahay asaa ku gubaay baruurta adigu uma baahnid inaad baruur gubto masalku wanaagsanaado waa metabolism-kaaga caafimaad yeesho masalkaaga wanaagsanaado waa adeegi oo awood yeesha oo jimka dhexdiisa wixii la rabay sida loo rabay u qabta masalkaaga wanaagsanaado waa da'daada oo hoos u soo dhacda waa da'daada oo aan sinna loo dareemin waxa kale oo ogaataa fat loss-ka ama inuu jirkaaga baruur ka dhacdo ama inaad calool la dagaalanto waxa ka horeeyo inaad marka hore muruqa dhisto sababta ku leeyahay waxay tahay imisa idin kamid ah oo miisaan iska soo riday laakiin markii bil ama isbuuciyo ay noloshoodii caadiga ah dib ugu soo laabteen miisaanku ku soo laabtay imisa maxaa keenaya weli ma isweydiisay waxaa keenayo markii hore baad baruurti iyo muscle-ki iyo wixii oo dhan israacisay laakiin waxaa sahlanaanaysa marka hadhowti baruurti inay sideedii u soo laabato haddii laakiin xoogaa yar aad qurxin lahayd oo aad samayn lahayd waxaa la dhaho body recomposition oo marka hore murqihiina aad kobcin lahayd oo dhisi lahayd oo awood u yeeli lahayd baruurtina aad ridi lahayd hadhow baruurta soo noqon lahayd muruqa ka caawin lahaa inaysan soo noqonin exercise-kan ugu horeeya dabcan sidaad aragtaan
waxaan ku bilaabaa in horta jirkeyga kululeeyo treadmill-kan saaranahay 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo aad time-ka haysato ku soco kadibna waxaan bilaabay inaan jirkeyga kala furfuro waxaad ogaataa mar haddii aadan 20 jir ahayn way adagtahay inaad intaad iska ordo biraha hore aad ka qaado leannahu dhaawaca kaaga imaan karo amaba muruq baaba wax kaa gaari karaa ama lafa wax kaa gaari kartaa waxaan isku dayaa marka 5 daqiiqo sidaad aragtaanba horta inaan jirkeyga furfuro inaan dhiigeyga qulqulka dhiigeyga aan diyaariyo dabcan markaas anoo diyaar ah birta aan u tago waxaan ku bilaabaa exercise-keena ugu horeeyana waa body weight squat intana badan squat-ka wuu nagu adag yahay squat-ka waxaa la dhahaa aalamiitadan aad arkaysaan oo aan intaan fariisto aan kor u soo kacayo haddii aalamiitadaas kaliya muhiimadda leedahay aad ogaan lahayd ayada kaligeeda maalin walba sameyn lahaydeen haddii squat-ka dadka jilbaha uu la xanuuna aad ka mid tahay waxaad samaysaa isku day inaad kursi raadsato ama wax uun aad gadaal gashato kadibna intaad fariisato aad soo kacdo stiil faa'iidadii murqahan ajarka ku jiro ay helayeen way helayaan laakiin mid ogow waana non-negotiable yacni wadaxaajood ma lahan sababta waxaa ogaataa squat-ku wuxuu train gareeyaa lugahaaga oo dhan wuxuu exercise gareeyaa koorka oo calooshaada ah dad badan ma ogo squat-ku hormonaadku exercise gareeyaa haddii testosteron-kaaga low yahay haddii hormoon qalqal aad tahay qof dumar aad tahay squat-ku waa exercise-ka ugu fiican ee hormonaadkaaga wax ka bedeli karo sidoo kale squat-ku wuxuu caawiyaa nolosha caadiga ah ee dailiga ah dadka inta badan istaaga ku shaqeeyo dad badan waxay ku leeyihiin coach anigu maanta oo dhan aan taaganahay goorma maanta oo dhan dadka taagan haddii gymka markay joogaan squat ay sameyn lahaayeen weligood lugaha kama daali lahayn u fiirsa maanta dumar badan waxaa jiro shaqooyin culus oo istaaga ka shaqeeya guriga markay jimaadaanna lugaha ay bararaan waxaan kugula talin lahaa gymka taga squat gareeya dadka inta badan shaqadooda ay socodka tahay dadka inta badan shaqadooda jaranjaro la koraaya ay tahay salaadaha haddaad dhib ku qabto jilba xanuun aad qabto fadhiga hadduu ku dhibaayo oo markaad fariisanaysa jilba xanuun aad qabto waxaan kugula talin lahaa squat sameeya haddii squat uusan ku jirin exercise-kaaga wax walbaad samaynaysa ama foundation-kaaga waa weak tacbaan waay squat waxaa kusoo gabagabeynaa hadduu ka maqan yahay exercise-kaaga nooc raba ha noqdo dhowr nooca ku tusiyey goblet squat aad samayn kartaa birta duudka saaran kartaa body weight-kaaga isticmaali kartaa haddii midna uusan ku jirin waxaad ogaataa lower body-gaaga ama qaybta hoose jirkaaga waa meesha ugu daran miisaankaaga xambaarto ducfiyaa ku imaanayo da'daada doona gaarinaad gabagaboobaysaa exercise-keena labaad waa hip hinge-ga haddii dhabar xanuun aad dhib ku qabto exercise-yadan si fiican u dhuux da' kuma haysato laakiin hibskaaga ama miskiyahaaga yaa ducfi ku yimid waana inta badan meesha dadku ay ku wareeraan meeshaan exercise-yada sida deadliftiga exercise-ka loo yaqaano oo kale Romanian deadlift kettlebell hinge sidoo kaleeta RDL-ka oo Romanian deadliftiga ah ama exercise-kan hadda aan sameynayaba asaga naftirkiisa waxaa la dhahaa RDL ama Romanian deadlift wuxuu protect gareeyaa qaybta hoose ee dhabarka wuxuu dhisaa murqaha barida ku jiro ogow murqaha barida ku jiro miskiyaha iyaga caawiyo lower baagaaga qaybta hoose dhabarka qaybta hoose murqaha barida ku jiro caawiya haddaa xanuun ka dareemaysid waxay ku tusinaysaa in murqaha baridaada ku jiro ay daciif yihiin sidoo kaleete wuxuu improve gareeyaa posture-kaaga qofka inuu si qumaati ah u istaago dabcan uusan soo gudmin u fiirsha dadka inta badan markay da'da soo galayso ayagoo saan iyo bay hal mar saan soo noqdaan ama dadka fadhiga badan amaba dadka inta badan xafiisyada ka shaqeeya wuxuu kor u qaadaa exercise-kan aad arkaysid metabolism-kaaga miga aaminay weliba waxay dhahaan in ka badan cardio-ga intuu kor u qaadayo because of murqahan uu dhisaayo yaa waxay keenaysaa maantoo dhan in ayaga laga shaqeeyo taasoo adiga dan ay kugu jirto oo metabolism-kaaga maantoo dhan uu shaqo ku jiraayo baruur badanna uu gubayo haddii baaga uu ku xanuunayo waan kugu celinaa da' kuma hayso hibskaaga ducfi ku jira exercise-ka saddexaad waa exercise push okay waa exercise aad wax riixayso waxa kowka ah push upku dadka inta badan inaysan sameyn karin iyo ku andacoodaan ma sameyn karno laakiin push upka dhowr nooc loo sameyn karaa derbiga caadiga ah intaad gacanta saarato yaad ku sameyn kartaa labadaada lugood inaad iskor saarto labadaada lugood intaad jilbaha dhulka dhigato yaad sameyn kartaa asagoo caadi ahna waad sameyn kartaa sidoo kale sida aniga iiga jeedaan gymka markaad joogtid dumbbell press aad sameyn kartaa still
murqaha xabadkaaga wuu dhisayaa. meeshan waxaan rabaa wax yar inaan ku dhex geliyo dumarka aaminsan ama laga dhaadhiciyo waa arka influencer badan oo ka hadlo haddii xabadkaaga uu daciifo ama muxuu ahay aad rabto inaad xabadkaaga dhisto dabcan xabadka dumarkan ka hadla push up sameey almitooyinkan xabadka la sameey hal mid ogow jirkaaga waxaad ogaataa isbedel wuu ku imaanaa miisaan wuu ka dhacaa baruur way ka dhacaysaa laakiin naasahaagii mar hore dhacay push up exercise waxba kama bedeli karaan. hal midaa meeshan ku jirta marka naasaha idin yaraanayo dadaa waxay dhahaan naasaha idin yaraanayo marka push up ka samaysaa marka no naaskaagu wuxuu ka samaysan yahay baruur mar walba baruurta jirkaaga ku jirta ay naaqustana asigana wuu shirinki garooba oo dib u noqona waa labe murqaha ku hareereysana dhismaayo almitooyinkan markaad samayso waana taas waxa ku keenayo inuu jirkaaga dhan isbedel hal mar ku dhaco laakiin yaa laga dhaadhicinin almitooyinkan aad samaynaysaa 20 jirkaaga sidaad ahayd ya dib ugu noqonaysaa waa been waxna kama jiro. almitadan aan sameynayo waxay train gareysaa murqaha xabadkaaga ku jiro oo dhan murqaha garbaha ku jiro murqaha qaybta dambe ee gacanta ku jiro iyo sidoo kaleete murqaha calooshaada ku jiro. haddii push up uu kugu adag yahay mar kale aan kugu celinaa darbiga gacnaha saaro kursiga gacnaha saaro hadaa rabtid jilbaha dhulka dhigo muhiimadu waxbaad baranaysaa isku day in aad jimka maadaama aad dhex joogto dadka oo dhan ay ku arkayaanna aad ceeb u aragto inaad bilow tahay inay dadka ku arkaan. exercise-keena afraadna waa pull ama row. exercise-yadan dhabarka inta badan waa exercise-yada ugu muhiimsan ee caafimaadkaaga ka shaqeyn kara dhowr xabaana kaa tusina insha allahu tacaala halana ka dooranaysaa. exercise-yada aad kaysiin 2 maalin haddii aad samayso iyo haddaad 3 maalin samaysaba 5tan exercise haddaad 3 bil samayso way kugu filan yihiin laakiin hal mid aan rabaa inaad fahanto haddii aad rabto inaad maalmaha sidii haddaad rabto variety inaad ka dhigto exercise-yada kala duduwdo coach maanta kee sameeyaa kan beri ma sameeyaa kan kale beri aan sameeyo sideen isku dhexgeli karaa 3 maalin haddaan idin soo sameynaa insha allahu tacaala commentiga igula wadaag. exercise-kan ugu horeeyaan ku bilaabay waxaa la dhahaa lat pull down gaar ahaan haddii aad 30 sano jirto exercise-kan posture-kaagu toosina markaa ku dhahayo dadka inta badan goobada leh dadka fadhiga uu ku badan yahay dadka darawaliinta ah dadka muxuu ahay garbahooda ay isgaleen dadka xanuunka qoorta ku qaba oo 24 saac la riixo dadka baagooda ama dhabarkooda uu weeyga yahay oo daciif ka yahay exercise-kan bahashan birtan la soo jiidaya aad arkaysid wax badan ay ka bedelaysaa. labo haddaad qof dumara tahay exercise-kan dhaxdu yareeya hal mid arba inaa ku fahansiyo cardio-ga faadka ka rida laakiin exercise-yada waa waxa ku qoraya haddaad rabto inaad qoranto waxa ku qoraya oo ku qurxinaya shape-ka ku yeelayo waa exercise-yada. exercise-kan marka wastigu yareeya dumarka si fiican ha ula socdaano. posture-kaagana mar walba ku celcelina posture-kaagana hadduu isbedelo iyo aamin jirkaaga dhan shape-kiisa wuu isbedelaa. exercise-kan ugu dambeeya marka waxaa la dhahaa xamaalka beeraleyda farmer carry-gan aad arkaysid sidoo kaleete maahan socodka caadiga qofka soconaayo 2 dhaambeelaad gacanta ku qabsanaysaa dhaambeeladaad la lugeynaysaa wuxuu dhisaa caloosha sidoo kale wuxuu dhisaa gripka fiiri gacnaha mujada haddaa weak ka tahay meeshaas oo kaleete way kugu adkaanaysaa. waxaana loogu talagalay nolosha saxda ah ee qofka xamaaliga caadiga ee aan sameyno dadka caadiga ee shaqeeyo dadka macnaha grocery-ga iyo adeegto mararka qaar waxaa arkaysaa 2 baco iyo rirro culeysaad soo qaadaysaa waxaa arkay ristiyada iska kaa xanuunaya waxa keenaya waxay tahay murqihii meelahan ku jiro dhan daciif ah. socodku noocan wuxuu ka caawinaa fat metabolism-ka in jirkaaga gaar ahaan metabolism-ku uu faatka jirkaaga si fiican uga gubo recovery-ga uu ka qayb qaataa stress hormone-ka cortisol-ka gaar ahaan zaa'id u caawiya xataa gaar ahaan waxay dhahaan ramadaanka aad ku anfaca haddaa rabto marka joogteynta exercise-yadan si joogteen inaad u samayso walaal cadiim 10 exercise ama 20 exercise waxba kama bedelayaan. 5tan exercise waa aasaaska wax la sameeyo oo dhan haddii aad wax kale ku dardarsanayso falilahi alxamd wax dhibaato ma lahan laakiin 5tan exercise kaliya haddii aad master garayso oo aad 3 bilood iyaga ku celceliso oo jirkaaga isbedeli waayo aniga dib ii soo raadi. 5tan exercise
اسبوعي 3 maalin aad ka sameyn kartaa hadaa rabto 4 maalin aad ka sameyn kartaa hadaa rabtidna 2 maalin aad ka sameyn kartaa fursadaada adeeg kugu xiran tahay hadaad ku qurxiso socod marka socodadii aan ka soo hadalnay hadaad dabada uga kabto wallahi alcadiim waxay noqonaysaa shaah oo sokortiisa u dhameystiran tahay qarfiyeelkii iyo sanjawiilkii iyo wax walba oo carfinayana lagu daroon laga iloobin haddii aad soo doonsano ka weyn tahay fitnesska yuusan ciqaab kuugu noqonin ha noqdo wax aad ku raaxaysato wax jirkaaga uu la qabsado wax signal gareeya murqahaaga wax signal gareeya awoodaada wax quruxda iyo dhalinyaranimadaada dib kuugu soo celiyo haddana ku cusubtaa channelka subscribe garee waa walaalkaa ku sabriye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.